runtii waxaan wanaagsan dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkan iyo waa Soomaali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studio-heena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka. Waraysigan isku soo foolay daawadayaal ayaa waxaan la yeeshay Colonel Cabdikariim Warsame Cali oo kamid ah saraakiishii hore ee muddo dheer u soo shaqeynayay dowladda dhexe ee Soomaaliya haatan ku sugan Seattle Washington oo ah gobol ka tirsan wadankan Mareykanka. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Colonel Cabdikariim isagoo markaasi ka yimid dhawaana booqasho ku tagay magaalada Muqdisho wadanka Soomaaliya. Marka hore studio-heena ku soo dhawow Soomaali American TV Colonel Cabdikariim Warsame Cali. waa dhawahay cali xaraare. waayahay su'aasha ugu horeysa ku weydiiyay anigoo doonayaan arrimo badan ka waraysto dhinaca amniga ku bilaabi doona. Amniga Muqdisho guud ahaan sidoo ahaa Colonel. wallahi amniga muqdisho runtii aga badan kuma taagnayn dadkuna waa iska garan karaa laakiin inta anigu aan kor istaagay oo aan xoogaal hoose u ahay waxaa kamid ahaa waxaa jiray Cornel la yiraahdo Adamo oo ah macallimiintii dugsiga kulliyadda jaalisiyaad oo marna ku soo qaatay wadanka Ruushka muddo dheerna waxyaabaha qarxa iyo miirooyinka bari jiray saraakiisha Soomaaliyeedna ay wada yaqaaniin dabadeedna u tagay wadanka Mareykanka waxbarasho la jaan qaadi karta hawlaha cusub ee 9/11 lagu soo biiray argagixisada iyo waxyaabaha noocaas ah sarkaalkaas wuxuu ku soo kordhiyay ciidamada booliska khibrad cusub iyo qalab cusub oo robotyo iyo kaamirooyin leh dabadeedna runtii hawl badan oo ka qabtay amniga magaalada Muqdisho laakiin si yar oo fudud ayaa looga qaaday ayada oo beel ahaan qabiil ay u dhiman tahay beeshoodii waxa uga dhiman tahay ay codsadeen booska in la geeyo asagina sidaas ku baxay qofkaas kale oo laga yaabo inuu aqoon badan u lahayn baa la keenay una malayn maayo taliyaha booliska iyo xaggiisa inay ka timideen si adigu 4.5 abu ku socday sarkaalka marka taa macnaheedu waxa weeyaan Colonel nin u qalma oo si aad sheegaysid professional nin shaqadaas si fiican u garanaya oo dadka wax ku soo kordhin karaya ayaa positionka waxa lagu qaaday nin reer hebel ku yimid ama beeshiisa xubintii ay ku lahayd iyo sadka ay ku lahayn halka loo keenay laakiin aanu qalmin ama aanu dhigmin ninkii hore ma sidaas oo kale waa sida oo macnaheedu yahay xafiis kasta oo dawladda waxa muhiim ah in 4.5 ka la cheegreeyo oo la xushmeeyo laakiin aqoonta kale macna badan ma samaynayso Colonel anigoo og inaad khibrad fiican u leedahay dhinaca qaraxyada iyo waxyaabaha qarxaba qalabka waxaan doonayaan ku weydiiyay bal intii aad Muqdisho joogtay wixii aad ka fahamtay haddii aad u dhowr gashay bal sida ay u dhacaan qaraxyadu maxaa fududeeya runtii arrintaasi dadka ku shaqale waqtigan xaadirkaana qaarkood waa la kulmay aniguna checkpointiga iyo nidaamku u socdo waa u kuurgalay arrimaha booliska naftigiisa waa kala hadlay fadhi aan wada fadhiisanay sababaha ay ugu fududaatay in nimanka nabadiidka ah ay checkpointiga ka tilaabiyaan qaraxyada waxa weeye waxay isticmaalaan runtii lacag ka bilaabata 1,000 ilaa 25,000 oo askarta checkpointiga joogtana 1,000 ilaa 2,000 bay qaataan si fariinta u imaanaysa markay helaan ay gaarigaas si yar oo fudud u sii daayaan ilaa ayaga meesha xukumee waxaa kaloo jirta dad magac ku leh xamar ama xildhibaanaha ama wasiir hadduu rabo ah ama janana ama korneel ah oo waqtigiisa una shaqaynayn asna dhaafiya gaarigiisa ku dhaafiya qaraxa oo ujeedadiisu tahay checkpointiga keli ah inuu dhaafiyo markuu dhaafiyana مثلا jidka sayidka waxa yaala checkpointiga kan ku xiga waa madaxtooyada marka checkpointiga sayidka hadduu dhaafiyo kan madaxtooyada oo may baana in la dhaafiyo ayaa asagaaba lagu qarxaya waxa kaloo dhacda mararka qaarkood in uu dhaafiyo qaraxii iyo darawalkii oo markuu dhagax tuur marayo aaliga dhagax tuur ka hoos baxa uu qof ku sugayo asna ka dago kii kalena halkaas uu
ku fuulo gaariga marka dad dawladda ka mid ah oo checkpointyada ideo u haysta ay ku dhaafaan ayaa waxa gudbiya shabaab u gudbiso okay miyaanay jirin markaa kolonel kamarad muujinaysa ama qabanaysa habka loo kala bedelayo ee xildhibaanku gaariga u soo kaxaysanayo ama nin mas'uul gaariga u soo kaxaysanayo isagoo gaarigii qalabkii qarxaya ay saaran yihiin uu gudbinayo kamarad lagala xidhiidhi karo oo dib loo dabageli kara miyaan meesha ku hol kamaradu way ku taalaa laakiin haddaan mar kale sayidka checkpointiga example u soo qaadano ilaa 100 mitir in u jirta checkpointiga ayaa gaaridu lagu soo layn gareeyaa waxaa soo degaya darawalka qofka gaariga mas'uulka ka ah ama xildhibaanka ama wasiirka ama wuxuu rabaa aadee meeshiisu fadhinayaa ID-da ayuu darawalka u soo dhiibayaa aqoonsigii sayidka jeegreeyay kaamiradan duurtagay kaamirada waxay haysataa waxay ku aadan tahay gidaaro meel cidlaa waxaan mas-uuliyiinta arrinta u xilsaaran ee sarsare la fariistay waxaanan u sheegay in laga soo durkiyo gawaarida oo gaarigu markuu buudka askarta taagan yahay kaamiradu ay qofka qabato mas-uulka ah si dee hadhow loo helo daata markii qarax halkaa ka dhaco ciddii ugu dambaysay soo martay laakiin kaamiraduba meeshii ma haysta calaa kulli xaal waa sababtii markii laga warramayay sidii loo qarxiyey xaruntii gobolka banaadir la sheegay in kamaradii ku xidhnaa oo dhan la sii dameeyey intii aan kulankii ama fadhigii la isugu imanayay ee qaraxu uu ka dhacay aanu markaas meeshii ka dhicin waa sidaas oo kale waayahay maxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha amni darrada keeni karaya ee aad meesha ku saartay waxyaalaha kale oo amni darrada keenaya waxaa ka mid ah horta si fiican baa la isugu dhex jiraa waayahay example yaraan soo qaadayaa marka masalan in oday ah waa wuxuu ii sheegay gurigiisa ayuu wuxuu rinjinayay ilbaabka iyo ganjeelkiisa uu rinji marinayay wiil yara wuxuu ku yidhi wariyaa maalin dhaweetana derbi yar baa halkaa ka dhigtay maantana waxaa rinjinaysaa guri albaab iyo maxaad u soo sheegi weyday oo canshuurta u bixin weyday wiilkaa wuxuu ka socdaa nimanka shabaabka waan gartay waliba ninkaa ii sheegaya waa boolis waxaan ku idhi oo adiga wiilkaa yarkaa baad iska kala tuurtido war wuxuu yidhi arrimuhu saas maaha wiilkaa yar meel buu dabada kula jiraa si xushmadna waa inaan oola hadlo marka waa iska baryay waxaan idhi walaalow hadda haaf baan baryey bal haafka kale aan dhammaysto waxaad igu dee xukuntidna waa bixinaya marka waa la isku dhex jiraa al-shabaab iyo dadkii kale isku dhex jiraan al-shabaab iyo dadkii kale iyo ciidamo kala nooca talisada booliska ka mid ciidamada ka mid aan tegay booliska yaadiin waxaan ugu tegay 3-4 ciidan oo kala nooca ciidan turkiga iskale oo ay mushaar ka qaataan ciidan dawladda federaalka ka qaataan ciidan dawladda ingiriiska ka qaataan kulligoodna isku dharkii Soomaalida labsan yihiin iyo ciidanka Amazon markaas waxaa garanaysaa inay jiraakii iyo ayna jirin runtiina waxaan rabaa inaan halkaa waxyar ku darsado oo ah dawladda hadda jirta ciidamada aad bay wax badan bay qabteen oo xagga mushaarooyinka ah wax badanna way haleeyeen oo xagga darajooyinka iyo sidoo ciidanka isku xukuma iyo ciidanka saraakiishii wax taqaanay oo ay ka taqoluseen nidaamyo badan baa isaga khaldan waaye aan hal su'aal ka weydiiyo inagoo aan ka wada gaari karaynin arrimo dhan ka wada hadallo dhinaca arrinta sheegaysa in reform lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya sidee arrintaas u socotaa arrintaasi markaan u kuurgalay gabadha arrintan u xilsaaran oo ugu sareysana aan la kulmay saraakiin jarana u badanna aan la kulmay gabadh horta waxaa reformka ugu sareeya guryaha Samiro ma gabadh baa u sareysa arrinta gabadh baa u sareysa la yiraahdo Samiro oo markaan si xuraamay la ii sheegay in ay
shaqada hadda haysatay ka horreysay ay ahayd ay ka shaqeynaysa xafiiska communicationka ee madaxweynaha dalka Kenya ee Uhuru waddanka Kenya marka iyadu ma Kenyatta ama Soomaaliyeed ayada wax ii cadeeya waa waayay meesha ay runtii ka soo jeedo laakiin Soomaali way ku hadlaysaa waayahay gabadhaas marka maxay samaysaa awoodeedu intee gaarsiisantay gabadha awoodeedu waa awood aad u ballaaran ciidamada noocay rabaan ha ahaadaan shaqaalaha dawladda noocay rabaan ha ahaadaan agaasimayaal waxaan wasiir hayn waayahay waxay haysataa liiskooda shakhsi bay interview uga qaadaysaa intayna ka qaadinna mushaarkay joojinaysaa si qofkii uu daciifo haye ya waayahay oo generaalkii xogaa ismacnayn lahaa mushaarkii baaba ka go'an marka waa inuu mushaarkiisa soo ceshto awooddaasay leedahay saraakiisha 32 wixii ka koreeya uma baahnin bay tiri wixii ilaa dawladdii maxamed siyaad barre u shaqeynayeen uma baahni niman yar baan u baahanahay haddana waxaa la soo kordhiyeyba in xataa hogaamadii la yiri imtixaan baa laga qaadaya oo qof kasta qofkii rabaa noqon kara marka Samira ma waxay ka socotaa dhinaca ra'iisul wasaare Khayre mise dhinaca madaxweyne Farmaajo xagee ka socotaa dawladda Kenya ayaa soo dirtay iyo Samira labadaba kama socota waxay ka socotaa hay'adaha dawladda Soomaaliya gargaaraha hay'ad kamid ah nin Soomaali ah oo hadda aan rabin inaan magaciisa sheego oo Washington jooga ayadu daatada u dirtaa waxa ay soo sameeysan ninkaasi u dirtaa oo Soomaaliya ninkaasna hay'ad uu hoos yimaado ayuu u diraa dabeetana saasa qofka loo ogolaadaa waay halkan Soomaalidu xukunta ma baahaba waayahay waa hagaag iyadana bal inta aynu kaga gudubno waxaan rabaa inaynu qodobo kale u sii gudubno oo ka mid ah ifafaalaha doorashada sanadka 2021 mid dhacaysa ma kula ekayd Colonel Cabdikariim Warsame mise waxa ahayd mid aan wali haadkeeda lahayn doorashada lagu soo foole horta anigu markaan arkay dukumeenti rasmi ah way dhacaysaa waaye sida u dhacaysaa markaa waxay u dhacaysaa sidii xasan shiiq oo kale horta badanaaba waxay noqonaysaa doorashadii dadbaneyd qaabkii xasan shiiq ee degmooyinka xildhibaanadu ka imaanayeen laakiin waxaa ka yara bedelan meeshii uu odayaasha saxiixa laga rabay halkaan tiradada baa xildhibaanka soo dooranaysa waate markay soo doorato oo xildhibaanka la soo doorto waxa kali ah oo ka qarsoon hatta guddiga doorashada waxa weeye waxa ku jira maqaamka magaalada Xamar qaab ay rabto dawladdan inay u daboosho waaye waa qaabkee kaasoo ah in ay مثلا example haddaan soo qaato Puntland waxay leedahay 38 xildhibaan baa Puntland laga soo doortaa waaye afar baa laga jaraya waaye galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo kuwaasna waxbaa laga soo jarjaraya waaye tirada Puntland ee hadda haysato oo 38 ah سدني بنتلان أفريا قلها شعبك oo kale ayaa markii gobolada laga soo jarjaro waxay noqonayaan 37 xildhibaan way 37 marka banaadir baa loo haynaya banaadir baa loo soo jaray asagoo oo eeshi garow ka tirsan qabiil ahaan laakiin matala ahaan wuxuu matalaya gobolka banaadir waan gartay marka halka waxa ka soo baxaya dawlad goboleed yar oo ay leedahay gobolka banaadir ya waate marka waxay noqonaysaa waxyaabo la isku aadiyo la isku jaababeeyay oo su'aashii dadka qaarkeed ka imaan lahayd مثلا gobolka banaadir
sidiisaba wuxuu lahaa 7 xildhibaan oo markii hore lahaa ya صح laakiin hadda full buu leeyahay 37 aqalka sarena wuxuu leeyahay markii hore wuxuu lahaa eber hadda wuxuu leeyahay aqalka sare 9 اوكي marka qoladii ku dhigi jirtay gobolkii banaadir looma fadhiyo baa la isaga gufeynaya ayaa lagu qancay si fiican baan u fahmay way su'aal kale aan rabaa inaan ka weydiiyo barnaamijkan inteena soo gabagabeen colonel cabdikariim warsame xalan meesha la yiraahdo maxaa ka jira meeshaas xalada miyahu waxyaabo badan oo runtii anigu aan marna malaysan oo ku soo arkay way mid ka mid ah haddaan ka soo qaado waxaa jira ugu yaraan 12 hay-adood oo isku wax hal shay qabta hal wax qabta way oo aan amni shuqul ku lahayn wax kala shuqul ku lahayn waxa weeye qoladan la dhaqdan dawooyinka sameeysta way oo vaccine-ka iyo waxa soo saarta talaalada iyo waxa oo aan ku ogaan jiray wadamada aad ma arkino Mareykanka iyo Japan wadamada horumaray ayaa waxay ku leeyihiin isbitaallo ay daawooyinka ku baartaan dad ay ku tijaabiyaanna waa la iska garan karaa easy bay u tahay hawla ammaan iyo arrimo Soomaaliya waxa ka shaqadood ma sibay hawlahaas bay halka ku wataa okay meesha marka madawooyin baa lagu sameeyaa cusub oo hor leh oo la doonayo in loo iibgeeyo isla Soomaaliya oo ay dhici karta in dad lagu tijaabiyo dawadaas inay soconayso inaan soconayn sidaas ah dawada lagu sameeyaa isla markaasna tijaabadiina isla meesha ka dhacdaa waxa kale oo ka jira isla hay'ado kale oo ayaguna hub yar yar oo مثلا waxaa jira arrimahan daroonka iyo si looga baxo ama ay u noqoto accurate sax u noqoto rasaas yar oo liquid ah oo مثلا waxa lagu daadinayaa wax yar oo Soomaaliya dukaamada marka wax laga gato isbitaal shaar baa gadanaysa banaanka wala bixi karto waa qaylinaya Soomaa because waxa ku jira liquid baala Soomaa صح kaasoo kala lagu daadinayaa dabeetana hub raadsada liquidkaas ayaa la sameynayaa si adoo iska socda la sharkaagii ku xabadu ayada ku soo raadsanaysa waana taan aaminsanahay gabadh in lagu dilay waxa way xabad iska socota ma jirto xabadu meel bay ku socotaa target bay leedahay hadaf waxa weeye liquidkaas bay raadsanaysaa waad maasantahay waqtiga xiriir inagu waxaan doonayaa inaan waraysiyo kale aan kula yeesho colonel inagoo meelo badan ka eegi doona laakiin waxaan doonayaa maanta inta inaan ku soo gabagabeeyo mahad ballaaran baan kugu soo jeedinayaa oo aad barnaamijkaasi aad naga aqbashay aad iyo aad baad mahadsantahay colonel cabdikariim warsame cali waa hagaag daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi aan si guud khadka telefoonka anigoo kula xidhiidhay colonel cabdikariim warsame cali oo saraakiisha hore Soomaaliya kamid ah haatana booqasho ku tagay kana soo nabad noqday magaalada Muqdisho aan kaga wareysanay arrimo ay kamid yihiin amniga xalane doorashooyinkii iyo arrimo kale oo fara badan toddobaadka soo socda ayaan eegi doonaa in aan kala sheekaysto arrimaha dhinaca bulshada maciishada iyo nolosha magaalada Muqdisho tan kulankeena dibadda wadayaal intaynu barnaamij ama wareysi kano kala dib u kulmi doono waa cali xaraaro dhamaantiin midka tagay sida ayo nabad geliyo